الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها خير ما يتصف به العبد وخير ما يتزود إلى يوم المعاد. walalayaal waxaynu ka hadli doonaa in sha allahu dhibaatooyinka maanta jira ee caalamku aada uga qayliyey, waxyaabaha aynu kaga hortegayno fii manduurin diiniyin wa islaamiy, innagoo ka eegayna dhinaca diinta iyo waxayna fartay. wax kastoo dhacaba islaamku waxba ku xalliyey, waana waxa u wanaagsan. waxaynu kaga hortegaynaa ugu horeeya adducaa. toddobadan qodob baynu tirin doonaa. waxa ugu horeeya adducaa, inaynu ilaahay barino subxaanahu wa tacaala. gaaladu awoodunbay isbidaan, laakiin ilaahay ma baryaan. baryo gaalna lama aqbalo. rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo ducada inagu waaninaya markay wax dhacaan waxa uu leeyahy xadiidkii axmed uu warinaya xasanka ahaa: laa yaruddu lqadara ila ducaa, aw laa yuraddu lqadaru ila biducaa. qadarka ducadunbaa lagu hor joogsadaa. macnaha ducaduna way qadaran tahay, wixii soo dhacayana wuu qadaran yahay. labadaasuu ilaahay isku reebaya, wax qadarka ilaahay ka baxaa ma jiro. xadiid kaloo xaakim uu warinaya min xadiidi caaisha xasana, rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam: adducaa yanfacu mima nazl wa mima lam yanzil. ducadu balaayada soo degtayna waxbay ka tartaa, balaayada soo socotana waxbay ka tartaa. waina albalaa'a la yanzil fayalqaahu ducaau fayactalijaani ilaa yowmi alqiyaama. balaayada soo socota ayay ducadu iyo rabbi barigu ka hortagaa, ilaa qiyaamaha inta laga gaadhayana way isla laban legdaystaa. marka hadday ducadu xoog badan tahay, way ka xoog badan doontaa balaayada. waxaynu kaga hortegaynaa ducooyinkaas uu nebigu inoo jideeyey sala allahu calayhi wasalam. ducooyinku nebigu ina baray baa ugu fadli badan, taasoo ilaahay uu baryayo wixii khayraha addoomuhu ay haystaan inuu ilaahay u daayo, wixii balaayana ka duwo. allahuma innaa nacuudu bika min zawaali nicmatik. ducooyinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam: ilaah waxaanu kaa magan gelaynaa inaad nicmada naga qaado, caafimaadkana aada naga qaado, balaayadana aada nagu rido. intaaba waa kaa magan gelaynaa. min zawaali nicmatika wa taxawuli caafiyatika wa fujaahati niqmati. ilaahuw nicmada noo daa, oo caafimaadka noo daa, oo balaayada kadiskaana naga dulqaad. wuxuu ku ducaysanayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam: allahuma innaa nacuudu bika min albarasi waljudaami waljunuuni wa sayi lasqaam. waalida iyo barasta iyo cudurka judaamka la ydhaa iyo cudurrada xunxunba ilaaha waa kaa magan gelaynaa. markaa ducooyinkaa waaridka ee rasuulka ka soo aroorayba sirta xambaarsan. waxa labaadaynu kaga hortegaynaa sadaqa, inaynu deeqda bixinno oo dadkana wakhtiyadan la kala xidhay busaaradda ku badan iyo baahidee qof waliba wixii uu dhiibi kara uu bixiyo. sidaasuu ina baray nebigu calayhi salaatu wasalaam. xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan ayaa wuxuu nebigu ku caddeeyey maalintii qoraxdu ay madoobaatay, oo dee waa musiibooyinkii dhacay caalamkee kusoo kordhay. waxa uu yidhi: faidaa ra'aytum dalika fadcu llaha wakabiruu wasalluu watasadaquu. marka arrimahan oo kale aragtaan waaweyne caalamka kusoo biiray balaayooyinka ah, ilaahay barya, allahu akbarta badiya, salaada tukada, sadaqadana bixiya. anas ibnu maalik oo xokayntii nabigaa sala allahu calayhi wasalam rasuulku gacantiisa ku tababaray waxau uhi: baakiruu bisadaqati fa ina albalaa'a laa yatakhata sadaqa. bayhaqi baa warinaya, waa ahar sugan wey. laka laha sadaqadoo la degdega, balaayadu kama soo tallaabsato sadaqada, oo kama soo dulboodee waa dhagax ilaahay uu ku joojiyo. culimmadu waxay leeyihin xataa qofka gaalka ah laftiisa dee inuu ilaahay kaga difaacayo waa laga fahmi karaa xadiidka. wuxuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam laba malag inay maalin walba soo degayaanoo idin waa ducayeel, ducuu la taagayn: allahuma acdi munfiqan khalafan. ilaahw ka wax bixiyo bedel sii buu leeyay. ka kalena habaar buu la taaganya, wuxuu leeyahy: allahuma acdi mumsikan talafan. ilaah qofka wixiisa iska haysta talaf sii,
telefku waa dhimasho xoolaha ka dhiman kara naftiisa dhiman karta ehelka ka dhimanaya waa habaar 500 ha ahaato 1000 ha ahaado koob shaahana ha ahaadee habaarka malaga inaynu wuxuun kaga fakanaa fiican waxa uu kaluu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam cudurka laftiisu markuu yimaado waxyaabuu ilaahay ku qaaday inay ka mid tahay sadaqadu daawu mardaakum bisadaqa afarka xasanka ama xadiidka xasanka saasuu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam dadkiina buka ku daweeya sadaqada marka ka hortag iyo ka dabatag labadaba inay sadaqadii noqon kartuu ku caddeeyay axaadiida rasuulku waxyaabaha aynu kaga hortagayna waxaa ka mid a shukru nicma والصبر على البلاء قفكو أما ودبي أما داف بو هايستا مركو برواقي خير هايست إنو إلهي أمهدنقو سبحانه وتعالى مدركي با إلهي نوشوي أبارتي وإنغا إلاليي مركا وإن إنو إلهي أمهدنقنا إن بدن ربي سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم بإلهي بلن قادر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم إلهي وحب بلن قادر وقيسي haddii ay mahadnaqdaan waan kordhinaya caafimaadkan kordhinaya xoolahan kordhinaya roobkan kordhinaya wala in kafartum inna cadaabi la shadiid haddii nicmada ka gaalowdaan oo ku mahadnaqi weydaan cadaabkaygu wuu daray cadaabka cudurrada adaga caamkaaba ka mid ah waxa aynu kaga hortagaynaa ama ku waajahaynaa inaynu ka faa'iidaysanno wakhtiga faraha badan aynu haysanno الفراغ dadkii waa la wada xareeyay Soomaa maxay dadku yeelayaan miyay iska ciyaarayaan miyay majaajileynayaan dad badan baa waxay ka dhigteen ba cudurkan iyo waxan dhacay waxay ka xaraabaadsadaan ama ka riwaadsadaan qaar sida digaaga dawciya arkaysa qaar guryaha dhexdooda ku maadeynaya arkaysa markaad eegtan barahan bulshada iyo meelaha wax laga eego waqti aad u fara badan buu qofkii helay oo laga yaabo inaanay isu helin isaga iyo ehelkiisa iyo ubadkiisa waqtiga waa in looga faa'iideeyaa maxaa adduuniya aakhiraba dani noo ah sida loo cibaadaysanayo sida cilmiga loo kororsanayo sida aqoonta kor loogu qaadayo sida ubadka loo rabaynayo waqtiga dadku shaqooyinkii laga fasaxay waxbarashadii laga fasaxay waa nicmo qaali ah oo laga yaabo markaad mashquulsanayd inaanad haysanin talooyinku nabigu nasiinayna wuxuu ahaa wa faraaqaka qabla shughlik وصحتك قبل سقمك انت انا عذر كوغو دحين عافيمادك كفايديسو انت انا مشغول فراغ iyo chance ka faa'iideyso marka taasina nicmooyinka ka mid tahay waqtiga in lagu buuxiyo wax qiimo badan oo ciyaarta laga daayo iyo riwaayada iyo bilaa macnaha iyo haasaawaha iyo dambiga waxaynu kaga faa'iideysanaynaa inaynu soonno bishan Shacbaan oo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uu soomi jiray soonkeeduna waxa uu ka mid yahay soomamka ugu fadli badan sunnayaasha axaadiidta saxiixaynka waxa ay tilmaamayaan oo Caaisha leedahay kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan in yar mooyaane bisha shacbaan nabi maxamed uu wada soomi jiray wamaa ra'aytu akthara siyaaman minhu fi shacbaan bishu ugu soom badnaa nabi maxamed bilaha sanadka oo dhan marka la isku daro shacbaan bay ahayd ramadaan marka laga reebo أسامة بن زيد أصحابي اللي ورنا يبقى ويديه النبي قال وحول بيشن صوم كأد بعض بديسا شعبانه محاكو ساكر داي وحول النبي وكسب بي صلى الله عليه وسلم بيشان وابل أيدتكو قفلتك قسو جيهين أما أنا قاعد الدرين سنين صوم كيدو فضل يقول لي وابلو ده حيسب بليه حرمة الهامد كمدا ورجبه يا رمضان marka rajabna waa loo dadaalaa ramadaanna waa loo dadaalaa bishan bay dadku marka qaflad ka galaano markaasaan doonayaa qafladda inaan dadka ka baraarujiyo marka aad buu badin jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam bishan soomkeeda waxa kaloo tilmaamay amalka adoomahana in ilaahay la gaarsiiyo loo kor qaado waxa ku jirta bay culimadu leeyihiin xigmado dhowra oo nabigu soomeeyay sallallahu alayhi wasallam bishan shacbaan si aynu uga faa'iideysano xigmadaha waxa kamid ahaa xaasaska nabiga calayhi salaatu wasalaam intii soomku uu ka tagay soomku uu ka dib dhacay qallihii bishan shacbaan bay soo qalayn jireen sida xadiidka saxiixa ah Caaisha ku tilmaantay soomka wixii iga tagay ramadaan hore ay dhaafay waqtigaanay daahirka ahayn iyo waxaan soo qalayn jiray shacbaan marka si uu nabigu ula dadaalo xaasaskiisa isaguna sunnu soomaya iyaguna qallihii bay soomayaan
soomkaasi xikmadaha ku jira waxaa ka mid ahaa sidaa xadiidka hore usaamaba uu soo sheegay si uu qafladda uga baraarujiyo nebigu iyo cibaadada ay warla-aanta kaga sugnaanayaan xikmadaha waxaa ka mid a sida xadiidkaasi uu caddaynayo waa waqti camalka iyo warbixinta malaa'igtu ilaahay ay gaadhsiiyaan oo camalkii addoomaha la rafciyo marka waxaan jecelahay buu nebigu camalkayga in ilaahay loo gudbiyo anigoo sooman xikmadaha waxaa ka mid a waa ka tamriini calaa siyaami ramadaan waxaa loo sii tababaranayaa bishii ramadaane soo socotay oo qofku had iyo jeer hadduu hawl adag qabanayo loo tababaro ama dagaal uu gelayo oo carbis fiican la siiyo hawshaas si fiican buu u qabtaa uu ku xaragoodaa markaa qofkii shacbaan la soo qabsaday soomka ramadaanna way u sahlanaanaysa xikmadaha waxaa ka mid a waa ixyaau sunnatin mahjuura sunno dadku ay ka tegeen oo lasoo noolaynayo nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam waxa uu xusay xadiidkii saxeixaa sunno dadku ay ka tegeen qofka soo nooleeya waxa uu leeyahay ciddii kaga dayatay ajrigooda intay heleen in la-eg waxaynu dhibaatooyinkan ku waajahaynaa biliimaani bilqadari waatawakuli cala allahi tacaala waxaynu rumaysannahay wixii dhacaaba inaanu iska dhicin laakiin qadar ilaahay uu ku yimi marka waa ku qanacsannahay qadarkaa ilaahay u qaadan waa inagu dhici maayo waxaad arkaysaa gaaladiioo fooqyada iska daadinaya qaarkoodoo isdilaya qaarkoodoo isgubaya qadarkaanay rumaysnayn ilaahayna waynu tala saaranaynaa subxaana wa tacaala labada arrimoodba ilaahay aayaddan buu ku wada tilmaamay xayثu qaal qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lana huwa mawlaana wacala allahi falyatawakal ilmu'minuun waxaana soo gaari kara uun wuxuu ilaahay noo qadaray dadka alla yaqaankiina ee ilaahay rumaysanna allaha tala saartaan oo arrimahooda ilaahay u dhiibtaan waxaynu kaga hortegaynaa arujuucu waatadarucu ila allahi tacaala wax kasta oo dhaca ilaahay wuxuu inaga doonayaa inaynu soo noqono aynu baraarugno dadku xumaantiibay kullibdheenay ku fogaadeen marka waxaa loo baraarujinayaa inay dib u soo laabtaan ay baraarugaan ka gaalkii toobadkeenu islaamo ka caasigii ilaahay caabuda subxaanahu wa tacaala kii xumaanta ku jira ee uu ka baxo ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بدي يبر ببلايا يسبح ليبا إلى هول دنبي قيدتكو قلين أيا وحا كيمي عذر رضا يا عبسدا يا عريري بدن الدتك هايست يا بسارد وحا الله وحا هايستولا من بلايا دا أي دتكو سميين يا معسيدو كل شيء لا إلى هول marka ilaahayna dhibka wuxuu ugu ridayaa lacallahum yarjicuun si ay u soo noqdaan oo ay u toobad keenaan waxa aynu arrimahan kaga hortegaynaa akhdu lasbaabi lilwiqaaya ilaahay waynu qadarkiisa rumaynay waynu tala saarannay laakiin laa natawaakal isdhigan mayno oo odhan mayna ilaahay baynu tala saarannay wax walba aan samayno ma yeelayna ee wixii sharcigu ina farayna waa yeelaynaa ay ka mid tahay sababaha ka hortagana inaynu samayno horena waynu soo sharaxnay oo khudbadihii horena waynu kaga soo hadalnay siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam arrimaha noocana kaga hortegi jiray iyo dhibaatooyinka wax alla wixii caafimaad ahaan xal u noqonaya dadka ka hortagga iyo daaweynta intaba in iyadana aynu ku dadaalo marar badan a idaacadaha ka dhagaysataana la idiin sharxayo waxaa ugu dambayntii nataa'ij waxaa natiijahaan arrimahan uga soo baxay aynu arkayno ee caalamka ka muuqanaya ana alumuura biyadi illaahi tacaala arrimahoo dhami dhib iyo dheef bayna ilaahay gacantiisa ku jiraan oo dadkii odhan jiray awood baanu leenahay iyo dowladihii faani jiray ee ummaduhu xaggooda ay eegi jireen itaaldarradoodii baa inoo muuqatay wa khuliqa alinsaanu daciifa waxaynu maqlayna madaxweynaha talyaaniga gacmuhu kor u taago waxa uu leeyahay arrinku dhulkii wuu ka dhammaaday xagga saraa laga war sugaya dadkii muslimka ee masaajidada inay ku tukadaan loo diiday baa lay shaariciyada ku tukada bannaanada oo bal in wuxuun laydinka aqbalo ilaahay noo barya bay leeyihin annaga dawadayadii iyo ogsajiintayadii iyo waxaga iyagu u dhammaaday cirkaynu jawaab ka sugaynaa buu ku leeyahay dee waxay ahayd inuu ilaahay rumeeyo subxaana wa tacaala markuu dacfigiisa qirtay waxay noo arrintanina xusuusinaysaa nataa'ijka ka mid ah aakhire iyo qiyaamaha yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nu yugniih waa la kala yaacay
وأدتك أنتي كوجودة ويد بتكعر رئيس أو بتكاجي أوريد هذه أهلك أيوقف كعر رئيس قف والبحر كف لمبة هراي waxay wasaa'il al-i'laam ay maalmahan ku arkeen in dhakhtarada wuxuu aad buu qalbigayga u damqay dhacdada iga soo martay buu dhakhtar Faransiis oo gaala inuu dayaa wuxuu jiifay buu cusbatalka iyaga markay nafti qabatay oo sii dhimanay ayaa wuxuu caruurtayda dabada joogta bal ilbaqsiyadii u dambeeyay aan si aragna igu yeedh waan ugu yeedho waxa uu aabihiin uu dhimanaya nabadgeliyay waxay yiraahdeen ma waanu ka qaadaynaa cudurka ha iska dhintee u sheegin aanan u soo gali karayn sidii baan ayay kaga joogsadeen ay kaga baqdeen buu macnaa aabahoodo dhimanay eegi kari waayeen oo ay ka carareen waxaynu uga faa'iideysanaynaa arrimahan ama nataa'ijka ka soo baxay ay tahay inaynu ka faa'iideysano xaaladii timaadaba islaamka waa looga faa'iideeyaa marka dadku marka daciifnimadooda ay muuqatay arrinkii inuu ilaahay ku ururay oo cadaatay qofka gaalag joogaana waa inuu dadaalaa siduu islaamin lahaa qofka qof muumina ag joogana ama qof caasi ag joogana waa inuu u dadaalaa sidii uu soo hanuunin lahaa ee khayrka ugu soo jahayn lahaa waayo meel aan weligood bal xidhin baa la xidhay oo ka mid yihiin meelihii dumarka xumxumay ay xumaanta ku sameyn jireen mukhbaaradiya meelihii khamriga goobihii khamriga bahalka qamaarka la oran jiray dhul weligood mamnuuc ay ka ahayd in la taabto oo oran jireen xorriyad ayaa maanta xidhan marka waa islaamka looga faa'iideeyaa iyo dadka sidii diinta loo jeclaysiin lahaa iyo kol haddii awoodii ilaahay arkeen oo itaal daradoodii ay muuqatay sidii alla loogu soo celin lahaa arrimahaasina waa waxyaabaha ama laga faa'iideysan kara ama nataa'ijka kamida اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة